السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إن شاء الله meel kastoo adduunka joogtaan kusoo dhawaada channelkeena Ikram Beauty New. haddii aan ugu cusub tahay soo dhawo subscribe taawo gambaleelkana taawo si aad ula socoto fiidaasha xiga. asxaabteeda qaaliga maanta waxaan ka hadlayaa muuska faa'iidada uu leeyahay meesha sirta oo cadanta ah waxyaabo badan ayay qabataa iyo qobka muuska moosku is qabanay sidoo kaleeto marka haddii ay ilkaha jaalo ka noqdaan mooska marka cuntis qobkiisa haddii ay ilkaha ku xogtid wayt ay ku naqanayaan meesha sirta cadanka haddii ay hooshid oo wajiga haduu nabar ka leeyahay hadduu indhaha hoostiisa madow ka leeyahay wajiga ayaa la marsadaa maasha Allah ay ku naqanaysaa qobka inta kala goosid ayaa malab intii la mariyo indhaha hoostiisa la saartaa insha Allah maanta waxa ka hadlaynaa timaha ayaa la marsadaa soo qobka timaha maasha Allah uu kaaga dhigayaa soft ay kaaga dhigayaa timaha uu ku dheereenayaa haddii ay geed ku baxayo geed ku bixbayay oo yacni geed guriga ku abuurtay qobka mooska inta biyo la dhigtid habeenkii subaxi biyahaas ku waraabi kartaa mooska haddii kale inta shiido ayaa ku shubi kartaa markaas midkaadi markaas ku fiican ayaa sameyn kartaa timahana sidoo kale maasha Allah aad ayuu bixinayaa marka waa kana ujeedina aniga ayaa marsaday aniga ayaa tijaabiyay ilaahay la og marka saliid iyo malab ayaa ku darayaa iyo yogurt adiga haddii avocado haysato avocado ay kula shiidan kartaa wixii jilcan markaas ay haysato ayaa kula shiidan kartaa haddii aad timahada adag yahay wax markaas subag oo kale ayaa lagu darsadaa si timaha soft kugu noqdo ama butter oo kale ayaa lagu darsadaa yogurt ayaan ku darayaa yogurt haddii aad fahmayso yogurt caanaha fadhiyo waaye oo full cream ka ah saliid ayaan ku daranaa waa saliideeda saliid Ikram Beauty saliid olive haddii aad haysato saliid fiican haddii aad haysato waa ku isticmaali kartaa saliideeda 12 saliid ay ka kooban tahay maasha Allah timaha durbadii way ku bixinaysaa soo saliid fiican ayaa ku shiidanaysaa qobka mooska bishiid ma aha saliihin biyo ayuu noqonayaa durbadiiba hal mid timaha uu ka galgalayaa si fiican ina u miirtid ayaa fiican maro oo kale ina ku miirtid oo dhacaanka sa isticmaasho because hadhow camal waa iska jijifaysaa qofka dulqaad la ayaa isticmaali karo saaid ma ka galay laakiin xoogaa wax yar marka shalnay tagtid ayaa wax ka soo dadaadanayaan okay isla fahmina u maleynaya soo marka timahaada maasha saaid ay kugu baxayaan durbadiiba ku dheeraanayaan adiga inaad dul qaadato ay u baahan tahay oo waqtigiisa isbuuci timaha hal mar ayaa nafaqa la mariyaa nafaqada haysato qobka mooska haddii aad tuuri jirtay maanta kadib ha tuurin marka aad cunto qobka wajiga marso wajigaada da'diisa wuu yareynayaa qashinka u jeedina u maleeyo sidoo soo haray halaan rasiinka halaan yariska siibo wax yar oo mid madow ay ku dhex jiro mooska asaga mar walba duu caadi yahay haddii kale to mar walba qobka ayuu kugu reebaya marka qofka dadka waxa jira mugtaa qof waxaan ma sameyn karo waxaan ma yeeli karo dadka sacmal uba fiicno dadka degan oo ayaa isticmaali karo oo timaha jecel dadka timaha jecel ayaa la hadlayaa maasha Allah timaha wuxuu kaaga dhigayaa maasha Allah saliida ugu roono saliid fiican ku darso adi 2 qaan 3 qaanto timaha inta la eg tahay maasha Allah bac ku xir adiga 40 daqiiqo ku joog kadibna iska dhaq maasha Allah timahaada qurux ay ku noqonayaan wayna ku baxayaan insha Allah haddii aad ka faa'iiday asxaabtaada kale la share garay insha Allah timaha waxay u baahan yihiin saaid inaad daryeesho sida wajigaada u daryeelaysid timahaadana inaad u daryeesho ay u baahan tahay dad dhif ma ahan timahooda qurxan ma aha inta kale timaheena way gaagaaban yihiin soo maaha marka timaha insha Allah aan ku dadaalno timo qurux badan si uu noqdaan timaha looma dhashto adiga ay gacantaada ku xiran tahay dad ay aaminsan timaha in loo dhashto timaha looma dhashto timaha dad qof walba markuu dhalanayo timaha dheer muuqaamay wax yar waxa la kala roon yahay timaha waa la kala bixi ogyahay dhaqsi laakiin haddii aad ku dadaashid timaha adigana way ku baxayaan maasha Allah asxaabteeda oo jeedin saliidayda waa soo celiyay asxaab badan ayaa ka soo dalbatay oo jeedin inta xabo saliid ay soo sameeyay oo jeedin insha Allah Soomaaliya Muqdisho Hargeysa meel kasta ay ka helaysan insha Allah South Africa aniga ayaa ni jooga wiilasha bidaarta gal rabto gabdhaha timaha ka daadanayso si ay u gurmayaan dadkaas oo dhan ay u fiican tahay haddii aan la gadanin halaan dhan soo macelin oo jeedin oo maleena insha Allah marka I hope inaad ka faa'iidaan oo insha Allah qiimo dhimis oo lagu sameeyay ka faa'iidaysi wacan insha Allah asxaab badan ayaa dad qiimo dhimistii dhaqsi ma joojiyay insha Allah waa soo celiyay waxaan mar walba soo celinaa insha Allah bari ugu horeeyo soo marka insha Allah ka faa'iidaysi wacan lambarka Muqdisho waa ka lambarka Hargeysa waa ka lambarka South Africa oo idin soo qormaya insha Allah meesha ku soo qormaya soo marka insha Allah ka faa'iidaysta
adinka dartiin madaxiina ayaan usoo sameeyay because qof walba waxay leedahay saliid fiican ayaa rabnaa soo marka saliid walbo qof walba saliid ayuu soo saaray masha Allah waa la kulu quality fiican yahay waa la kala fiican yahay hadii timaha isticmaasho timahaada ay ka go'ayaan ay ka istaag weysinta saliideeda isticmaasho lacagtada ku celinaya insha Allah wax oo markaas wax laga faa'iido natiijo la aniga ma soo saaray insha Allah timahaadana masha Allah ay ku naqanaa way ku dheeraanayaan qalalku ka baaya hada tima qalalanta oo timaha mar walba ay tagtaagan yihiin masha Allah timahaaga daryeel duduub markasto nafaqa mari shaambada ku dhaqaysid iska fiiri biyaha isticmaalaysid biyo dhanaan badan haday yihiin iska fiiri biyo filter la isticmaal biyo caafi isticmaal isbuuciba hal mar ayaa dhaqanaysaa xataa soo gado hadii biyaha meesha aad degan tahay saad u dhanaan yihiin mise ay wasaqaysan yihiin biyo caafi gado oo halka maalin timaha ku dhaqanaysid insha Allah masha Allah marka asxaabtayda insha Allah channelkayga hadii aad ku cusub tahay soo dhawow hadii hore noola joogtana soo dhawow sidoo kale subscribe ka noo saar like share subscribe asxaabtiina la wadaaga insha Allah